السلام عليكم كسر دوادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan cashirkeenu wuxuu marayay geelaa soo maray iyo wuxuu daaqo waxaan kusoo xijinay looda waxaan sii wadaa barashada af Soomaaliga oo bilow ah oo marano qaybtii qoraalkii bataajadii aan soo dhaafnay marka waxaan hadda maranaa cashiradii koobnaa yacnihii cashir dhaadheer maaha oo cashir gaagaaban oo ugu talagalay dadku inay ka faa'iideystaan si ay u bartaan dadka aan garanayn Soomaaliga qoristiisa yacni intay bataajada akhristaan xarfihi isku xirkii xarfaha ay fahmaan si ay u bartaan oo u fahmaan af Soomaaliga ay u qori karaan sidaa darteed imika hadda waxaan bilaabayaa cashirkeennii hore wuxuu ahaa soo maray geela waxaa haddana soo maray looda tiyo inoo dhiman tahay xoolaha in badan haddii aan rabno inaan ka warrano waxay daaqaan iyo waxay cunaan aan ka warrano waxaa inoo dhiman waxyaalo badan baa inoo dhiman xooluhu waxa weeyaan waxaa la yidhaha xooluhu aad bay u fara badan yihiin marka iyo xooluhu aad bay u fara badan yihiin markaa sidaa darteed waxaan kusoo qaadan doonaa cashirada dambe laakiin cashirka waxaan kusoo qaatay aan hadda ka hadlayo waxaan kusoo qaatay gabaygu sheeko maaha gabaygu sheeko maaha taabaan rabaa inaan yacni ka bixiyo warbixin gabayga waxaa la yidhaahdo sheeko maaha heesuhuna sheeko maaha gabaygu sheeko maaha oo gabaygu sheeko ma noqonayo gabaygu waxa weeyaan af Soomaaliga murtidiisa oo yacni laysku soo murtida oo laga soo dhex saaray wax walba waxay leeyihiin murti naxwi carabigu leeyahay Soomaaliguna wuxuu leeyahay murti wax la yidhaahdo ayuu leeyahay marka murtidii baa laga soo dhex saaray murtidii baa markaa laysku geegeeyey maxay noqotay naxwihii Soomaaliga ayaa la soo qaaday waa la isku geegeeyey markaa muxuu noqday markaa labuu noqday wuxuu noqdaa dhowr buu noqdaa laba qura ma noqdo dhowr buu noqdaa wuxuu noqdaa gabay buu noqdaa marka la isku dardaro hees buu noqdaa wuxuu noqdaa geeraar buu noqdaa wuxuu noqdaa geeraar buu noqdaa wuxuu noqdaa maaso wax la yidhaaho yacnaha iyadna gabay jiifta ah ayuu noqdaa wuxuu noqdaa mahmaah buu noqdaa oo laga sameeyaa naxwaha Soomaaliga murtida Soomaaliga yacni wax walba naxway leeyihiin ayaa laga sameeyaa mahmaah baa laga sameeyaa gabay baa laga sameeyaa jiifta laga sameeyaa bahal jiifta la yidhaahdo laga sameeyaa oo la yidhaahdo maaso la yidhaahdo laga sameeyaa waxaa laga sameeyaa hees baa laga sameeyaa buraanbur baa laga sameeyaa waxaa laga sameeyaa ciyaaraha lagu ciyaaro ciyaaraha hidiya dhaqanka waxa weeyaan iyaguna waxay ka mid yihiin dhaantooyinka iyo waxyaalaha lagu ciyaaro ee Soomaalida yacni waxay ka mid yihiin naxwaha Soomaaliga ama murtida Soomaaliga oo la soo ururiyey ayaa intaasoo nooc u kala baxa oo noqda oo gabay noqda oo noqda hees noqda oo noqda geeraar noqda oo noqda mahmaah noqda oo noqda wuxuu noqdaa dhaantada noqda heesaha Soomaaliga waxa ama dhaantayaha ama dhaanta ha noqoto bashirab ha noqoto ama maxay ha noqoto waxa intaasoo nooc u kala baxsanaya ciyaaraha lagu ciyaaro fadhiga lagu ciyaaro jirta sara joogga lagu ciyaaro jirta ciyaaraha hidiya dhaqanka yacni noocay doonaan ha ahaadaan iyuu soo galaa ayuu soo galtaa murtida Soomaaliga yacni waxay noqonaysaa murti bay noqonaysaa murtina waxa weeyaan Soomaali ahaan murti naxway noqonaysaa carabiga naxway noqonaysaa Ingiriiska important bay noqon wax xarfa la soo ururiyo important words saasoo kale bay noqonaysaa waxaasoo dhan baa laysku ayaa noqda intaasoo nooc bay kala baxaan haye markaa tusaale ahaan waxaan ii siinayaa
maadaama ood rabaa inaad cashirka ka faa'iidaysataan cashirkuna cashirkii saddexaad kii afraad ayuu marayaa cashirkan ayuu marayaa fiidiyoyada xagga hoos waad soo arkaysaan qofkii hadda arka yacni dib buu ugu noqon karaa cashirku halkuu marayo laakiin maanta waxaan kusoo qaadanay cashirkan sanaan kusoo qaadanay aan iga warramayo haye gabaygu hadda waa soo akhriyaya cashirkaan akhriyaya waa ni akhriyaya haddana waa ni tusaya cashirkaan ni akhriyaya haddana waa ni tusaya marka hore waan akhriyayaa gabaygu sheeko maaha yacni waxaan usoo gaagaabinayaa waxaan rabaa dadku inay ka faa'iidaystaan yacni qoraal dheer waan qori karaa laakiinse marka dambe ay noqon doontaa qoraallo dhaadheer inaan qoro oo yacni cashiro fiican aan bixiyo laakiinse hadda cashirada tusaale ahaan iyagoo gaagaaban dadku si ay u fahmaan ayaan idiin soo gudbiyaa gabaygu sheeko maaha gabaygu sheeko maaha gabaygu sheeko maaha gabaygu sheeko maaha tusaale ahaan waxaan i tusayaa kanaan waa tiriyey gabaygayganaan waa tiriyey ee la yidhaahdo gabayga libaaxa ayaan kasoo qaatay beyska ugu horeeya gabayga libaaxa isagoo fiidiyogu ku jira xaggaasu ku jira fiidiyooda hore ku jira waad ka daawan kartaa ciddii rabtaa way ka daawan kartaa fiidiyogan la kulataa way eegaysaa gabayga libaaxa ku qoran way eegaysaa oo dhammaystiran iyo isagoo baraba marka hore aan tiriyo kolkii ugu horeysa isagoo dhammaystiran marka geeda weynow haddaan bilaabaya geeda weynow libaaxuga roobka wuu ka gilgishaayey beyskaasabaa soo qaatay gabayo badan heeso badan oo sameeyey waan i tusi doonaa waan igu soo qaadan doonaa cashirada dambe haddii aad rabtaan waxaad ku reebaysaa kumatiga ciddii la kulataa kumatigay ku reebaysaa iyo ku reebaysaa wixii su-aala kumatigay igu soo qorsaa hoosta igu qoraysaa marka cashirada marka dambe aan arko waan arkayaa gabaygu sheeko maaha tusaale ahaan waxaan igu soo qaaday beyshkanaan igu soo qaaday geeda weynow libaaxuga roobka wuu ka gilgishaayey halkaa beysh baan igu soo qaaday isagoo dhammaystiran fiidiyoodu ku jira waan iisoo sheegay geeda weynow libaaxuga roobka wuu ka gilgishaayey waa murti yacni laysu geeyey sheeko maaha hadal yacnihii maalayacnina maaha yacni waxaasoo dhan hidda dhaqanka ciyaaraha waxaasoo dhan gabayada mahmaahaha heesaha waxaasoo dhan waa murti naxwaha soomaaliga oo lasoo saaray laga soo qabtay erayada ugu naxwaha lagasku soo geegeyey laga soo qabtay oo laga sameeyey weyaan si fududna laguma socdo marka waa saas cashirkeenu maanta saas buu ku socdaa geeda weynow libaaxuga roobka wuu ka gilgishaayey intaasaa tusaale ahaan isiinaya cashirkaan i tusayaa waana ni akhriyayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada waa kan cashirku gabaygu sheeko maaha wakaa isagoo halkaana ku qoray waxaan ku qoray geeda weynow libaaxuga roobka wuu ka gilgishaayey halkaas waa igu soo qoray hoostaa haddaad arki weyda fiidiyooyada ayaad ku noqonaysaan ood ka dhegaysanaysaan si fiican gabayga libaaxa waad ku qoran waad ka daawan kartaa markaa haye cashirkeena intaa hoose idiinma khusayso haddaad rabtaan inaad dhegaysataan waxaad ka dhegaysan kartaa meesha waxaad ka dhegaysan kartaa fiidiyooyada horead ka dhegaysan kartaa laakiin cashirka baa idin khuseeya dadka raba inay bartaan kaasi tusaale ahaan baan soo qaatay haddaad aragta si fiican u aragtaan iyo haddaad arki weydaan wax dhibaataa kuma jiraan laakiin haddii aad rabtaan inaad daawataan fiidiyooyada dib baad ugu noqonaysaa fiidiyodii horead kasoo fiirsanaysaan oo kasoo dhegaysanaysaan isagoo dhammaystiran hay gabaygu sheeko maaha gabaygu sheeko maaha
gabaygu sheeko maaha gabaygu sheeko maaha si fiican u fiirsan si fiican bal inaad u aragtaan filaya waxaan isku dayayaa inaad si fiican u aragtaan insha allah billahi kariim gabaygu sheeko maaha gabaygu sheeko maaha gabaygu sheeko maaha markaas si fiican u fiirsan gabaygu sheeko maaha gabaygu sheeko maaha gabaygu sheeko maaha gabaygu sheeko maaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka faa'iidaysta si fiican uga faa'iidaysta ta kalena wata haddaad aragtaan iyo haddaydan dad si fiican u aragtaan ugu malaynayaa geeda weynow libaaxuba roobka wuu ka hilgishaaye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantihiin janalka subscribe saara like saara ka faa'iidaysta si aad u aragtaan subscribe saara haddii aad yacnihii wax commenti haysaana hoosta igu reeba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu